dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in ay danaynayso in ay natiijo ka soo baxdo shirka dhuusamareeb. waxay sheegtay in loo baahan yahay la tashiyo baahsan iyo in meel wax la isla dhigo ayna habka doorashada ku salaysnaato taageerada dowladda federaalka, maamul goboleedyada, baarlamaanka iyo inta kale ee siyaasadda ku lugta leh oo aan muddo kororsi la samayn. inkastoo madaxweynaha Galmudug uu sheegay in uu shirka qabsoomayo, haddana waxaan muuqan qabanqaabo rasmi ah oo muujinaysa in shirku uu dhacayo. in ka yar 48 saac ayaa ka dhiman tahay waqtigii lagu mudeeyay in uu dhaco wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo lagu waday in uu shirka isna ka qayb galo ayaa iminka dalka ka maqan. laakiin BBC-da oo xiriir la samaysay madaxtooyada Soomaaliya waxay loo xaqiijiyay in shirka uu qabsoomi doono uuna madaxweyne Farmaajo tagayo, walow ay dhici karto in maalin ama 2 maalin uu dib u dhaco sida ay sheegeen. tan iyo markii shirka ugu dambeeyay lagu qabtay dhuusamareeb waxaa dhacday isbedel weyn oo lagu riday ra'iisul wasaarihii dalka. haddaba dooda khamiista caawa waxaynu ku eegaynaa shirka ma qabsoomaya, waqtigiisa ma ku qabsoomaya, maxaase dhici kara haddii uu qabsoomi waayo. waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaan Guuleed oo siyaasadda Soomaaliya falanqeeya iyo Mahad Waasuge oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista Somali Public Agenda. labaduba qadka Muqdisho ayay toos ugu jiraan. aan ku hormaro Cabdisalaan Guuleed. Cabdisalaan, shirkan waqtigiisa ma ku qabsoomaya? bismillah. shirku waxaan u malaynayaa madaxweyne qoorqoor maanta oo aaday dhuusamareeb oo xamar uu ka tegey guddigii farsamada ee ka imaanayay dowladda dhexe ee maamul goboleedyadana waxay bixi doonaa maalinta sabtiga xogta aan hayno. laakiin Puntland iyo Jubbaland guddigoodii farsamada wuu maqan yahay. inay imaanayaan labada madaxweyne ee maamul goboleedyada ma cadda ilaa hadda. aad iyo aad dadaal loogu jira inuu qabsoomo, laakiin farsamooyin badan oo maqan darteed rajada ma u badna inuu shirka si loogu talagalay ku qabsoomi doono. madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka inay tagaan waa u badan tahay, laakiin haddana haddaysan imaanin Jubbaland iyo Puntland oo ku xiraya shirka in prime minister la sameeyo, dowlad la dhiso oo cid hawshan dee mas'uuliyaddeeda qaada in la sameeyo ka hor inta shirka la isugu imaan uma muuqato marka in la sameeyo doono prime minister la magacaabi doono ka hor inta meesha laga tegayo. taasina caqabad ay ku noqon doontaa shirka. waa tahay Cabdisalaan, Mahadan u wareegaya. Mahad, adna maxay kula tahay? cilmi baarisna waad samaysaan, xaaladda si hoosan aad ula socotay, shirkan waqtigiisa ma ku qabsoomaya? waa maasan tahay Cismaan. shirka dhuusamareeb waxaa loo madlanaa 15 bishan. inta aan ka ogahay diyaargarow badan ayaa socdo. guddiyadii farsamo oo loo idmay ama la sheegay inay ka shaqayn doonaan inay soo saaraan nooca doorashada waa la wada magacaabay. maalmihii lasoo dhaafayna xamar ayay uga socotay shirar qorsheyn ah. diyaargarow fiican oo lagu aadayo dhuusamareeb ayaa hadda socdo. waxay ila tahay aniga in shirkii uu furmi doono. inta xamar hadda la joogayna wax badan oo nooca doorashada iyo lagama wada hadlin. shirkana in ay muhiimadiisa ay taxliiliyaan guddi farsamo oo waan gartay ayaa loo madleeyahay. marka waxaa isleeyahay rajada way fiican tahay. waqtigiisana waxaan loo badinayaa inuu ku qabsoomi doono. maamul goboleedyada waan gartay Mahad. Cabdisalaan ayaan markan u wareegayaa. rajadu sida Mahad sheegay way fiican tahay oo shirki waa qabsoomaya leeyahay, laakiin shirkan mida ka horeeyay dhuusamareeb. Cabdisalaan aan weydiinaya, maxaa ka hirgalay Cabdisalaan kii hore, kanna maxaa laga filayaa isna? shirka dhuusamareeb waxaad malaysaa inuu rajo cusub Soomaaliya soo geliyay. inuu ahay shirki noociisa ah ee lagu qabto waddanka gudihiisa oo cid dhexdhexaadine ama cid mas'uulka oo Soomaaliya dhex taagan u jirin. number 1 iyo number 2 oo soo maray ka saddexaadna rajo weyn laga qabo. laakiin sida aad idaacada ku sheegteenba markii prime ministerka iyo hormuud ka ah shirkan meesha laga ciiriyay, dowladna aan la dhisin oo dowladda Soomaaliya aysan dhisin cid mas'uuliyaddan qaadaysa, waxaad u malaysaa in caqabad weyn meeshaas yaallo. inta badan waxaa la isku hayaa madaxweyne Farmaajo meesha hadduu tago kaligiis. prime ministerkan hadda isagu si ku meel gaar uu ku yiri booska uu sii hay doona oo ilaa maamul goboleedyadu ku dacwoonayaan ma ahan sharciba, dowlad sharciya ma jirtaba. in meeshii la tago waan imaaday anigana waa ikan. taasina macno uma sameeyno shirka. marka sida ii muuqato waa la tegi karaa shirka,
waa tegi karaan maamul goboleedyada xiriirka kale dowladda federaalka iyo dowladda federaalka laakiin hadday ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland oo xibin ka ah dee muhiimad weyn leh uma walayn wax weyn ka soo bixi doonaan waan gartay Cabdisalaan waa mahadsan tahay mahad ayaan aadaya mahad Cabdisalaan rajo xumada uu sheegayo ama dowladdii ilaa shirkii hore uu dhacay ra'iisul wasaarihii waddanka waa la riday waxyaabo badan dhacay wax kale oo cad oo dadku wada ogyihiin ma yaalaan marka mooysan waxaas ku muuqan mahadow cismaan waa la qabaa Cabdisalaan in ra'iisul wasaarihii la riday ay dhabarjab ku tahay higsigii iyo waqtigii la rabay in inay doorashada ku dhacdo iyo dowlad cusub oo hadda kadib la dhisi doono laakiin aniga waxaan isleeyahay ujeedada loo samaynayo guddiga farsamo waxa waaye in waxyaabo farsamadii iyo noocii doorashada isla ka wada hadlaan isku afgartaan kadibna ay madaxdooda dib ugu yeeraan si ay uga qayb galaan una ansixiyaan wixii laga heshiiyey marka ra'iisul wasaaraha dib uu ka iman karaa haddii nooca doorashada hadda lagu heshiiyo oo guddiyada farsamana ay shaqeeyaan madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalkana ay tagaan dibna laga soo doorto ra'iisul wasaaraha wuxuu ku khasbanaan doonaa in wixii lagu heshiiyey iyo noocii doorasho fulinteedii in xukuumadda cusub iyo ra'iisul wasaare cusub ay ka shaqeeyaan marka waxaan isleeyahay xiriir xoogan kama dhexeeyo nooca doorashada in lagu heshiiyo iyo qaabka ay noqon doonto iyo in ra'iisul wasaaraha uu tago waxaan isleeyahay guddiga farsamo inay isugu yimaadaan dhuusamareeb ayaa ah muhiimadda ugu horeysa iyagana ay warkeen waxaa ku jiray in cadaadis ay beesha caalamka ay sheegayso ay tiri waa in shirkan uu dhacaa oo wax soo baxaan oo laysku yimaadaa waqtina aan dowladda aysan kororsan marka mahad cadaadiskaas muxuu kordhin karaa intaan Cabdisalaan u gelin mahadan ku hormaraya mahad wuxuu kordhin karaa cismaan in laysku yimaado lagana wada hadlo maxaa suuragal ah oo aan qaban karnaa dhammaadkii bishii lasoo dhaafay innaga waxaan daabacnay qoraal oo aan ku falanqaynayno nooca doorasho ee ah mid u dhaxayn karto tii 2016 dhacday iyo midda sharciga doorashooyinka ku qoran doorashada tooska ah taasoo noqon karto middle ground option ama meel dhexe oo labada dhinacba isugu iman karaan marka waxaa isleeyahay waxay sii kordhinaysaa cadaadiska beesha caalamka in la wada fariisto lagana wada hadlo maxaa suuragal ah marka loo eego waqtiga dhiman oo aan ku qaban karnaa waa tahay mahad waad mahadsan tahay Cabdisalaan cadaadiska Mareykanka iyo hadal ka soo baxay waxaa ka mid ah ha lagu daro xitaa dadka kale siyaasadda ku lugta leh xisbiyadii siyaasadda iyo inta Soomaaliya siyaasadeeda ka wada shaqeysa marka taa maxay kordhinaysaa Cabdisalaano sida muuqata Mareykanka hadalkiisa aad ka dhageysanaysay aad ka dheehanaysay waxa weeyaan waxaa jira cabsi iyo walwal iyo walaac aad u badan wuxuuna ku imaanayaa iyadoo hididiile weyn la helayo dalsliya Soomaaliya geedi socod nabadeed ay gaari doontaa doorashadana waxba laga gaari doona markii dawladdii la burburiyay meesha ka baxday madaxweynuhu oo si ula kaca la aaminsan inuu sameeyay ilaa waqti fiican oo heestuusan dawlad samaynin in mas'uuliyadda uu ka cararayo Mareykanka hadalkiisa waxaad ka dareemaysaa inuu leeyahay ma jirto doorasho doorashadii qof iyo coda inuu u xalminayo inaysan meesha ku jiri karin marka walaacan international community-ga Soomaaliduna way la qabtaan maamul goboleedyadu way la qabaan waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin dadka siyaasiyiinta hada mucaaradku leeyihiin mas'uuliyadda yaa qaadaya dawladu ma dhisna madaxweyne kaligiis soconaya muxuu qaban karaa yaa technical yaa mas'uuliyaddan qaaday marka walaacaas internationalka ah community Soomaaliduna qabto waxay ta madaxweynuhu meesha tago yiraahdo anigu waa ikan qaarkoodna imaa waayaan ka bacdina la soo laabto marka waxaa la leeyahay waa bari un baa naga xigta 15kii waa tahay Cabdisalaan ifaalaha muuqdana ma ahan mid dhamaystiraya runtii rajadii la qabay waa tahay Cabdisalaan waqtigeena oo soo gabagaba ah mahadow maxaa la filayaa shirkan hadda lagu balansan yahay inuu dhaco maxaa ka soo bixi kara adoo soo koobay waxa ugu weyn oo laga filayo inay shirka ka soo baxo waxa waaye nooc doorasho oo suurad gelinaysa in muddaxileedka u haray hay'adaha federaalka in lagu qaban karo kaasoo noqonaya marka waa tahay mahadow waqtigaan ugu yar Cabdisalaan adoo soo koobaya
maadaama barnaamijkan aan ku dhamayn karin doodeenna maxaa soo baxaya waxaa soo baxaysa in la isku yimaado madaxweyne farmaajo meesha tago dadka qaarna maqnaadaan dib loo ballamo cabdisalaan aad baad u mahadsantihiin cabdisalaan guuleed uu ahaa magaalada muqdisho qadka iskaabka uga jiray iyo mahadba oo labaduba barnaamijkeena dooda nagala qaybgelayay caawa oo khamiis ah cabdisalaan iyo mahad waa sugay aad baad u mahadsantihiin labadiinaba doodeenana kuma soo koobi karno barnaamij dhowr daqiiqa ah oo idaacaddeenna ka baxa qaybaheena dambena waad ku daawan doontaan qaybo kaleoo tan la mid ah